saxaabigan Thaabit ibnu Daxdaax oo loo yaqaano Abu Daxdaax Allaha ka raali noqdee wuxuu leeyahay qiso aad u layaab badan. Bukhaari iyo Muslim ayaa waxay wariyeen in wiil agoon ahaa oo ka mid ahaa ansaarta uu lahaan jiray beer. Beertiisuna waxay daris la ahaan jirtay beer kale oo uu iska lahaa nin kale. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu wiilkaani doonay inuu darbi ka dhiso labada beerood dhexdooda, darbigaasoo kala qaybiya beertiisa iyo beerta dariskiisa. Markii uu bilaabay darbigan dhisiddiisa, ayaa waxaa ka hor yimid oo isku aaday darbiga iyo geed timireed oo uu iska lahaa ninkii dariskiisa ahaa. Markaas buu wuxuu u tagay ninkii iska lahaa, kadibna wuxuu ku yidhi, walaalkaygiiow, adigu waxaad haysataa geed timireedyo fara badan. Dhibna kuguma ahan inaad i siiso halkan geed oo ku aaday darbigayga. Haddaan aniga iska lahaan lahaa darbiga ayaan dhex gelin lahaa oo waan ku dhisi lahaa. Balse waxaa mushkilo igu noqotay in geedku uu ka mid yahay geedahaaga. Darbigana iima toosayo haddaanan geedka marinin dhanka beertayda. Ninkii wuxuu yidhi, maya wallaahi kuma siinayo geedka. Markaas buu ku yidhi, walaalkaygiiyo waxba kaama dhibayso halkan geed isii ama iga iibi. Wuxuu ku yidhi, wallaahi midna ma samaynayo. Wuxuu yidhi, darbiga iima toosayo haddaadan sidaas samaynin. Wuxuu ugu jawaabay, taas arrin ii taallo ma ahan, ee waa wax adiga kuu yaalla. Kadibna wiilkan agoonka ah ayaa u tagay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu ku yidhi, rasuulkii Ilaahayow, beertayda waxay daris la tahay beertii Hebel. Anigana waxaan doonayaa in aan darbi ku dhiso labada beerood dhexdooda. Waxaa iga hor yimid geed timireed, darbiguna iima toosayo haddaanan dhinacayga marinin. Balse rasuulkii Ilaahayow, geedka waxaa iska leh dariskayga. Waxaan weydiistay in uu i siiyo, balse wuu ii diiday rasuulkii Ilaahayow. Rasuulkii Ilaahayow iiga shafeeco qaad oo igala hadal in uu i siiyo geedka. Kadibna rasuulka ayaa yidhi sallallahu calayhi wasallam, iigu soo yeer. Kadibna agoonkii wuxuu u tagay ninkii dariskiisa ahaa. Wuxuu ku yidhi, rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam ayaa kuu yeeraya. Markii uu u yimid oo uu soo istaagay rasuulka sallallahu calayhi wasallam hortiisa, ayuu rasuulku intuu soo eegay ku yidhi, waxay beertaadu ku taallaa saaxiibkaaga beertiisa dhinaceeda. Wuxuuna agoonkan doonayaa in uu dhiso darbi kala qaybiya beertaada iyo beertiisa. Waxaa ka hor yimid geed timireed adigu aad iska leedahay. Ninkii wuxuu yidhi, haa, waa runtiisa. Markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, geedka sii, iska sii walaalkaaga. Ninkii wuxuu yidhi, maya ma siinayo. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam mar kale ku yidhi, geedka sii walaalkaaga. Wuxuu yidhi, maya ma siinayo. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam mar saddexaad ku yidhi, halkaas geed iska sii walaalkaaga. Wuxuu yidhi, maya ma siinayo. Kadibna wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, iska sii geedka, waxaad beddelkiisa jannada ku helaysaa geed timireed weyninkiisa awgii. Qofka rakaabka ah ama wax saaran uu harkiisa ku soconayo 100 sano. Asxaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay aad ula yaaban yihiin bandhigan aadka u weyn. Sidee buu naar u gelayaa qof geed noocaas ah ku leh jannada? Ma waxaa siman geed adduunyo ku yaallo iyo geed janno ku yaallo? Balse ninkii waa uu diiday mar kale, isagoo u hanqaltaagaya maal adduunyo. Markaas buu iska aamusay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Intaas ka badan muxuu odhanayaa? Wuu iska aamusay. Waxaa saxaabadii halkaas joogtay ka mid ahaa saxaabigan loo yaqaano Abu Daxdaax, Allaha ka raali noqdee. Markii uu arkay bandhigan aadka u weyn iyo geed adduunyo ku yaalla oo maanta ama berri dhimanaya, oo lagu helayo geed timireed jannada ku yaalla,
geedka jannaduna uu yahay geed aad u weyn oo hoostiisa muddo 100 sano ah uu ku soconayo qofka raakibka ah ama wax fuushan. Markii uu abudaxdaax maqlay arrintaas ayuu ka samri waayey wixii uu maqlay. Markaas buu intuu soo istaagay yidhi, yaa rasuulallah, ka waran haddaan geedkaas intaan soo iibiyo aan siiyo agoonka, ma helayaa geedkaas jannada ku yaalla? Wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, haa, waxaad helaysaa geed jannada ku yaalla. Markaas buu abudaxdaax bilaabay inuu ku fekero, maxaan haystaa oo hanti ah oo aan ninkan ku kedin karaa si aan geedka uga gato oo aan ugala wareego kadibna aan u siiyo agoonkan. Markii uu fekeray ayuu xasuustay in uu leeyahay beertaasu ay ku tamanin jireen ganacsatadii reer Madiino badankooda. Waa beer ay ku yaallaan 600 oo geed oo timir ah iyo ceel iyo guri aad u weyn. Markaas buu abudaxdaax wuxuu yidhi, hebelow ama ninkan geedka iska lahaayow. Markaas buu ninkii yidhi, maxaad rabtaa? Wuxuu ku yidhi, ma taqaannaa beertayda taasoo ku taalla meel hebel? Wuxuu yidhi, haa, waan garanayaa. Ma qof aan garanaynin baa jira? Beertaadu waa beer ay ku yaallaan miro aad u wanaagsan. Ma cid aan ogayn baa jirta? Wuxuu yidhi, hebelow, qaado beertayda dhammaanteeda ee isii halkan geed oo keliya. Beerta qaado gebigeeda iyo wixii ku dhex jira oo geedo iyo ceel iyo guri iyo kheyrkoodaba leh. Halkan geedna isii. Ninkii ayaa soo eegay abidaxdaax, kadibna wuxuu milicsaday dadka. Markaas buu arkay in ay ka markhaati kacayaan beecan. Markaas buu yidhi, haye waan qaatay beerta, geedkana waan ku siiyey. Markaas buu abudaxdaax soo eegay wiilkii agoonka ahaa, kadibna wuxuu ku yidhi, yaa fulaan, geedka aniga ayaa ku siiyey, qaado oo ku darso beertaada. Markaas buu wiilkii agoonka ahaana qaatay geedka. Kadibna abudaxdaax ayaa isagoo aad u faraxsan soo eegay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu yidhi, yaa rasuulallah, hadda ma waxaa ii sugnaaday geed timireed jannada ku yaalla? Markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, maya. Abudaxdaax aad buu uga naxay jawaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Kadibna rasuulka ayaa sii watay warkiisa oo wuxuu yidhi, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala soo bandhigay in geed timireed adduunyo ku yaalla lagu beddesho geed timireed jannada ku yaalla. Adiguna waxaad halkaas geed u bandhigtay in loo qaato beertaada oo dhan. Allena waa kan ugu karaamada iyo waxbixinta badan. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala kuugu abaalmariyey in uu jannada dhexdeeda kaaga yeelay beero aad u fara badan oo ay ka baxdo timirtu, taasoo aan ka caajisay tirinteeda tirabadnideeda awgii. Wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam yidhi, kam min maddaaxin ilaa abidaxdaax. Meeqa maddaax ayaa u sugnaatay abidaxdaax. Maddaaxana waxaa loo yaqaannaa geed timireed la cuslaaday tirabadnida timirta saaran awgii. Wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam jumladaas ku celceliyey in ka badan hal mar, ilaa saxaabadu ay la yaabeen tirabadnida geedaha uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u sifaynayay abudaxdaax. Dhammaantoodana waxay ku tamaniyeen in ay ahaan lahaayeen abudaxdaax. Markii uu abudaxdaax ku laabtay xaaskiisa ayuu ugu yeeray guriga bannaankiisa. Wuxuuna ku yidhi, waan wada iibiyey beerta iyo guriga iyo ceelka dhammaantooda. Markaas bay xaaskiisu ku faraxday warkiisa, maxaa yeelay waxay ogayd khibradda uu ninkeeda u leeyahay ganacsiga iyo firfircoonidiisa. Markaas bay weydiisay lacagta ama inta uu ku gaday. Wuxuu ku yidhi, waxaan ku iibiyey geed timireed jannada ku yaalla oo hoostiisa uu ku soconayo 100 sano qofka raakibka ah ama wax fuushan. Markaas bay iyadoo aad u faraxsan ugu jawaabtay, rabixa albaycu abudaxdaax, rabixa albayc. Waa beec aad u faa'iido badan abudaxdaaxow, waa beec faa'iido badan. Allahu akbar.
innagu diyaar ma u nahay in aan adduunyadeena ku beddelanno aakhiradeenna? diyaar ma u nahay in aan dhaqaalaheena iyo baabuurteena iyo guryaheena u bixinno si aan janno ugu helno? adduunyadu runtii uma qalanto inaan u murgoonno, ama in aan quus u gaarno mushkiladaheeda awgii, ama aan dhiig isugu kicinno ka murgiddeeda. wax kasta oo agteena yaalla dhammaantooda waa kuwo zuulaya oo dhammaanaya, balse Alle agtiisa waxa yaalla ma ahan kuwo zuulaya ama dhammaanaya. daawadayaasheeda sharafta leh, waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.